haddana waxaan u yeerayaa waqtigu aad buu isu gurayaa waxa weeye waan jeclaan lahaa qof walba inaan siiyo waqti aad u badan oo aan kaga boganno laakiin maadaama aynu yaro badan nahay waxaan doonayaa inaan haddana u yeero Ibraahim Aadan Shire Ibraahim Aadan Shire wuxuu soo bandhigayaa caawa buuggan inaad hore u aragteenna waa laga yaabaa magaciisa la yiraahdo halgankii gunnimo doonka baa la yiraahdaa gobonnimo doonka baynu garanaynaa caawa gunnimo doonka way marka waa magac xiiso leh Ibraahim soo dhawow waxaan u maleynayaa adigana markii kugu horreysay maahan Somali Week Festival aad buug kaga soo qayb gasho halkan maanta ay ugu horeysa aad baan ugu faraxsanahay inaan nimid gaar ahaan in adiga kula kulmayo in badan aan Facebook kaaga xirnaa adiga mudan marka Somali Week Leicester baan tagay sanadkii hadda la soo dhaafay Leicester part Symphonics kan laakiin hadda ay ugu horeysa soo dhawow baan ku leeyahay waan ku faraxsanahay buugay kugu horeeyay Somali Week Festival kalkiisa 16aad sanadkiisa 16aad inaan anigu noqdo qofka ugu horeeyay buugii ugu horeeyay kaga soo qayb gasho ka wareysta soo dhawow waqtigu uu inahayaa marka waxaan doonayaa bal marka hore inaad xoogaa warbixin yar naga siiso buuggan iyo waxa ku qoran buuggan saad arkaysaan baa wuxuu qeexay caadadii Soomaalida ee markasta ciwaanada inta badan wanaagga ku bilaabi jirtay halgan markii la sheegaba Soomaalidu erayo fiican baa daba socda oo guulaha la gaaray haddaad geliso Google-ka ereyga halgan line dheer baa ku soo baxaya dhammaantoodna waa wax wada erayo wada tugan oo wanaag iyo meel fiican ku dhamaaday buuggan waa khilaafsan yahay saad arkaysaan waxa uu tusayaa oo tilmaamaya halgan iyo dadaal dheer oo naf iyo maalba la geliyay laakiin natiijadiisu ay noqotay gunnimo dhib iyo gumaysi rasmi ah oo dadkii waxa ka shaqeeyay ay ku jiraan gaar ahaan buugga wuxuu tilmaamayaa oo si gaar ah uga hadlaya dhacdooyin ka dhacay gobolka Gedo 1996 laakiin haddii sanadkan buugga uu soo bixi lahaa 2024 dadka intooda badan waxay u qaadan lahaayeen in uu ka dhashay falcelinta waxa hadda Soomaaliya ka taagan dhacdooyinka iyo hadalayntii ugu badnayd sanadkan 2024 waxay ahayd wixii la xiriiray Soomaaliya iyo Itoobiya dadku marka qofkii buuggan akhriyo wuxuu qaadanayaa falcelin ka dhalatay wixii hadda socday laakiin si wanaag buuggu sanad ka hor ayuu soo baxay taas waxay ku tilmaamaysaa inuu tusaalooyin rasmi ah ka siinayo waxa maanta taagan iyo wixii dhacay 96kii sidii isugu egyihiin iyo jidkii maalinkii la hayay madaxweynaha Soomaaliya hadda xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud sanadkan dhexdiisa bisha hadda naga dhamaatay dhamaadkeedii wuxuu sheegay waraysi uu bixiyay in gobolka Gedo qaybo kamid ah Itoobiya ay qabsatay hadda ilaha dhaqaalada ee rabooradu ay kamid yihiin ay ka qaado canshuur buuggan waxaad ugu tagaysaa qabsiinadu iyo canshuur qaadidu in ay bilaabatay 98 ilaa haddana ay socoto ilaa iyo dhacdooyin qoran oo 2020 hadda ahaa oo tilmaamaya cadadkii lacagihii ay qaateen qaybo kamid ah qaababkay u qaateen sidii u arkayaan qaadashadooda dacwo ilaa iyo filla Soomaaliya xilliga gaartay oo ganacsato Soomaaliyeed ka dacwoonayeen ciidamo Itoobiyaan oo dalka jooga oo lacag baad qaato oo cid ka qabatay ilaa yihiin oo haddana halkeeda lagu damiyo waxaad ugu tagaysaa buuggan dhacdooyinkaas ka sokow wuxuu kugu xirayaa in Soomaalidu ay dadaal u gasho oo ay gunnimada doonto oo ay dib ayadu lugaheeda ku raasado ma xilligaana ugu horeysay mise way ka horeysay wuxuu dib ku celinayaa 100 sanadood ka hor oo waxaad ogaanaysaa 1880kii Soomaali kale oo dhacdadii dhacaysay 1995 ugu jirto inay keensato cadow kale aakhirkiina ayadu gumaysi gelin doono marka intaasoo wax dhacayeen mid kasta nooma qornayn meelay ku qoran yihiin kama akhrino nasiib darro hadda mar kale waxaan taaganahay 30 sanadood ka dambe isla dhacdooyinkii oo kale buugga marka waa buug taariikheed waa buug kaaga warramaya dhacdooyin is soo haysay 100 sano
وابوك سينيو دعوة حادثة وحد تاجن أو واقعي كردستان وابوك أتكو حريرين كرتو واحد ما أنت تاجن يا واحد ماضي وقت هراء عن صومرني أدبو كوبي هاي لا بقول بقوي لكن وحسكو دي إنه كورمه مدة لا بقول سنة تكدو aad baad u mahadsan tahay waxaa la yaab leh buuggan markii ugu horreysay ciwaankiisa arko magaciisa aan arko aad baan ula yaaba doorashada ciwaanka noocaasa sidee kugu fududaatay inay ciwaanka noocaasa soo dhufato كل عيد كسوة قرتي ويوان كرتا عوانكو ووحا وديبك بدن قفك قراغا أو هيلي كرو دور قف وبوغان أخرسي أو إيسو جوابتي وحا كتر مامين عوانكو إنو ها إلهان أو waxa lagu ilhaamiyay meel dambe macnaha xaq ilaahay ka hadaya xaqiiqatan qaab kaasan leeyahay kara sababtoo tahay buugga markaan qoraalkiisa bilaabay ciwaan baan u bixiyay dhaxda markaan mariyay ciwaan kale aan u bixiyay dhamaadkiisa markaan soo gaaray baan ciwaanka siiyay wuxuu marka ka dhashay wixii aan qorayay iyo hadba warbixin dheeraad ah iyo tafaasiil aan helayay mar walba oon ku daro sawirkii aan haysay sawir ka sii qaab daran bay soo baxay markasta oon ciwaankiisa qoraalka sii wado oo sii dheeraado waxa ay soo baxayay sidaan u arkay dhacdadu inay ka sii qaab daran tahay ka sii foolxun tahay ka sii gunnimo badan tahay marka ugu dambeyntii sidaasaan waxaan isiri alla ilaahay wax uun keliya lagu tilmaami karo tusaale ahaan ciwaanka ugu horreeya oo siiyey wuxuu ahaa halgankii lagu hungoobay marka kaasaan ku bilaabay buugga noocaasaan raadinayay laakiin markaan meel dhex maraya waxaan ogaaday inaana lagu hungoobin keliya ee dhibaatadu hungo ay ka weyn tahay waxaad ku hungoodaa waxaad rabtaad ka weeday laakiin dhibaato kale aan ku geysan laakiin dhibaatadii dhacday waa ka weyntahay intaas ayada ah waan ka bedelay oo waxaan damcay inaan siiyo ciwaanka qaababkan waxa aanay ku dhaceen maxaa keenay laba group oo is haysatay oo cad yar oo dhex yaalo dhexdoodii ah ku heshiin weyday marka waxaan isiri alla ilaahay markaan isma dhaanta ma dhahdaa isma dhaantadii markii aan ku waday oo buugga dhamaadkiisa aan soo gaaray waxay soo baxday inay dhibku intaa kan weyn yahay isma dhaantadii dhibku uusan ku ekaane dhibkii uu gaaray bulshadii gobolka deganeed iyo dalkiintiisa kale oo wixii geda ka dhacay ay u gudbeen koonfurta Soomaaliya baayo bakooli ka talaabeen ilaa iyo ugu dambeyntii ay filla Soomaaliyaba ay gaartay oo maanta aan Ethiopian ku badee safaaradoodii ay xisbiladan u dhex degan tahay shalayto iyo darhad midkood wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu lahaa maba ka saari karnaba tabaro ma haynaba marka saas uu magacu ku dhashay dhacdooyin kale oo marka buugga ku jiro وحيس جارا waxaa kamid ah markii la yiraahdo waxa aad Soomaalida ugu bato aad loo ogyahay in dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo ama dambi loo haysto ama dambi galay ama cid kale wax ka tirsanayso dalalka dariska loo dhiibo dhacdooyinkaas waxay aan ugu noqdeen in inta badan ay ka dhacaan Somaliland in ay ka dhacaan Puntland in la yiraahdo waxay bilowdeen laba kunadii kan ayada waxaad ogaanaysaa buuggan dhaxdiisa ugu tagaysaa dhacdooyinkaas inay bilaabeen horaantii sagaashamaadkii waxa yar burburka Soomaaliya kadib waxaad ogaanaysaa culumada caamaba inay dadka dhiibahayeen oo arintan hadda kaliya loo xilsaaro oo dusha laga saaro maamulada jiro inaad absantahay maamulo wadaada ah oo diinta islaamka oogitaankeedii sheeganayay inay haddana muwaadiniin Soomaaliyeed oo jeebaysan ay wadamada dariska u dhiibeen ayagoona maxkamadii waxba aan marin aad baad u mahadsan tahay waa buug bahar baxoor ah baan dhihi karaa intaana kagama bogan karno aad baan kaaga mahadinayaa sida faahfaahsan ee waqtiga kooban aad noogu soo koobtay waad noo fadhiisan haddii ilaahay yarado buuggana wuu inoo yaalaa waanad u saxiixi doontaa dadweynaha iibsada haddii ilaahay yarado aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay soo dhaweyd haddana waxaan u yeerayaa maxamed ibraahim xaaji inuu ila soo fadhiisto xaaji soo dhawow adigu marti maahid in badan baynu halkan isku arkaynay horta waxaan doonayaa marka hore inaan raaligelin yaroo caataa kaa siiyo sanadkii hore bay ahayd buuggan in maaragtay aynu si fiican usoo bandhigno laakiin waqtigu cidhiiri nugu noqday darteed in ay suurageli wada inaad si faahfaahsan uga hadasho buuggan waa raaligelin soo daahday weeye laakiin inaad naga aqbashaan rajaynayaa
kusoo dhawow Somali Week Festival iyo sanadkiisa 16aad adigu ehelka baa tahay oo soo dhaweynta aad ugu badin mayo caaw waxa inoo yaala buuggii caanka ahaa ee dhibane baa inoo yaal waxaan doonayaa sidii akhyaartii ka horreysay ay yeeleen bal marka ugu horreysa buuggan iyo umuurihiisa inaad noo soo koobto waqtigana aad noogu dhowrto aad baad u mahadsan soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa raalgelinta runtii waad mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya waana aqbalay waxaan jeclahay buuggan dhibana la yidhaahdaa 2018 anigoo warbaahinta bahalkan Facebook la yidhaahdo ku jira ayaa waxay ugu soo baxay wiil yar oo Hargeysa jooga oo meel dayacan jooga oo geeraar tirinaya oo uu cabanaya waa derbi chief wiilkaasi wuxuu ka cabanayaa duruufaha haysta dayaca haysta sida ay dabayluhu iyo dhaxanta maansaanu tirinaya aad u qurux badan sida ay ma garanaysaa dabaylaha iyo duufaankaas ugu dhacayaan sida aanu ehel u lahayn sida aan cid u daryeelayn aabe ehel wax walba marka waxaan u qaatay runtii ayna ahayd dacwad aad u weyn bay ahayd oo inankaa yari uu ina weydiinayo waa xujaanay ahayd runtii maansayar baan ka daba tiriyey marka kolley halkan caawa maan sidaa uma joogno laakiin dareenkaasi maalintaasu igu dhashay muddo yar ka bacdi waxaan arkay anoon weli buuggii qorin laakiin dareenkii ugu jiro warbaahinta oo inankii warkiisii qaadaa dhigtay dabadeedna inankii markii dambe sheekadu way iska dheer ambassador baaba wuxuu u noqday dadka dhalinyarada derbi chiefka ah awal magac muu lahayn derbi chief baa la odhan jiray laakiin hadda waa nin caan ah oo waa la yaqaanaado magac buu leeyahay Mandela la yiraahdaa waa nin bulshada ka tirsan oo wax ugu filan marka waxa iskay tustay marka war dareenka yara inanka yara dhaliyay iyo falcelinta laga celiyay dhibaatada weyni iyadoo bulshadeenu ay runtii dhibaato caruurta ku hayaan oo tusaale ahaan ilmahaasi waxa ugu weyn aynu qiimeynaa waa diinteena xitaa masaajidka haduu yimaado laga baacinayo biyo lagu saydhanayo waxa kalena iska badaa guri reeru soo martiyayo marka in isbedel lagu sameyn karo hadii loo hadlo baa ugu dhacday dabeedna buuggan sidaas runtii igu dhalisay inaan qoro oo ilmaha loo soo jeesto oo wax la iska weydiiyo oo tusaale noolna inankaasi uu yahay codkii uu ku hadlay iyo maqalkii la maqlay in laga falceliyay imikana qof la yaqaano oo bulshada ka tirsan oo awalna magacna aanu lahayn cidina aqoon derbi chiefna loo yaqaanay sheekadana waxay ku bilaabmaysaa ilmo yar oo kudaafad lagu tuuray gabadh qashin soo daadinaysa oo iyada lafteedu reer u shaqaysa ay arkayso ma ogtahay ilmaha yar ee meesha kudaafada dhex jiifa waa goor maqrib soo dhow yahay cilcilo way tahay way ag fadhiisanaysaa ilmihii yaraabay marba dhinac ka eegaysaa dabadeedna iyadoo hayso madaxa u salaaxaysa oo caanam yar ag yaalana ay afka ugu haysa ayaa laba gabdhood kale arkayaan dabadeedna waxay u qaadanayaan jim bay u qaadanayaan meesha kudaafadan qofka ilmaha ku haysata gabdhihii baa cararaya dabeedna sanqadhii bay naxaysaa gabadhii markii hore ilmahan qof bay waxbay siinaysaa halkaasay sheekadu runtii ka bilaabmaysaa waqti iska cilciloowa bay ahayd dabadeedna way ka tegaysaa iyada lafteedu jim bay u qaadanaysaa cidladii bay kaga dhaqaaqaysaa roob baa imaanaya waa meel xeeba bay ahayd duufaanaha dhacaya adigu sheeko dheer oo noocaas bay ku bilaabmaysaa ilmaha yar adigu gabadhaas way soo qaadaysaa reer bay u keenaysaa reerkay u shaqaynaysay waa la korinayaa reerku ka mid noqonaya laakiin muddo hadduu joogana reerkii iyo ilmihii yara waa ay iswaadayaan wadankay ka guurayaan dabadeedna ilmahani hooyadiibuu u yaqaanaa gabadhaas oo heshay gabadhiibuu marka ku haraya wuu diidayaa reerkii inuu raaco oo ay hooyadii marka runtii sheekadu saasay ku bilaabmaysaa si aan haddana u soo koobo waxay imaanaysaa ma ilmahan keliya ilmuhu waa dhibane laakiin ilmahan yuu u dhiban yahay ma isaga keliya dhibana ah hooyadii dhashay ilmahan laftigeedu inay naxariis iyo jacayl u haysay kalgacayl waxaad ku garanaysaa waanay u labistay caanana way ag dhigtay si cid kale uunay markaa u daryeesho maxay u tuuraysay marka ilmaha ay sidaa u jeceshahay waxa ku soo baxaysa marka iyada laftigeedu inay dhibana u tahay dhaqan
oo lagu cadaadiyay uurka kan iyo meeshuu ka yimid iyo waxa haddana waxa imaanaysa waalidkeed sidan ay ilmahan hooyadan markay u nacayaan iyaga laftoodu waa ilmaheedii maxay waalidkood u nacayeen gabadha tan way jeclaan lahaayeen inay iska haystaan laakiin iyaga laftigoodu waxay dhibano u yihiin dhaqan bay iyaga laftoodu dhibano u yihiin nasiib darrooyinka jira waxaa ka mid ah gabadha ama gabdhaha la midka ah inay sida ilmahan iyo uurkan uu ku dhacay aan cid weydiinayn xataa hadday ka waranto oo si sax ay wax u dhaceen aan laga rumaysanayn marka sheekadaas oo isku taxan oo ilmaha iyo hooyada iyo daryeel la'aanta iyo duruufaha haysta ah ayaa sheekada buuggaasi ay ku socotaa ilmahaasi hooyada gabadha jaariyadda ah ee magaranaysaa soo heshay hooyada u noqotay way la qaxaysaa oo reerahoodii inta looga soo warramo ayay la qaxaysaa way la cararaysaa laakiin gaari baa jidka kula gudoomaya iyada lafteedii marka gaarigaasi la dhaco dhakhtar baa la keenayaa dad badan baa meesha ku dhimanaya ilmihii oo madaxa haya oo la jooga ayaa oo hooyadii u haysta ayay dardaaran ereygii ugu dambaysay ay u sheegaysaa ilmahaasi marka loo cidlo ku soo dhacaya iyana halkaasi nafteeda ay ku waayaysaa marka waa sheeko sidaa u taxan waxaan runtii jeclahay wuxuu ka hadlayay inankan hadda qoraagii iga horreeyey dagaaladii gado ilmahaasi dagaalada gado waa ka qayb galayaa dadka dagaalamaya ee dagaalka gado 97kii ka qayb galaya buu noqonayaa ilmahaasi derbi chief buu noqonayaa waxyaalaha uu marayo waxaa ka mid noqonaysaa waayo derbiga kudaafadii buu dib ugu noqonayaa marka gabadhaasi ka dhibato oo durufo kale uu maro arrin cajiiba ku jirta oo ilmahaasi ciyaalkii kudaafadda markuu u tago waa la is wareysanayaa waa la soo dhaweynayaa ileen waa dad waa bulsho kale oo nool si qaab u nool waqtiyada ka mid ah bay marka waxay is wareysanayaan dagaaladii waa xamar ka dhacaya waa lagu kala qaxayaa nin waliba qabiil buu u qaxayaa way is weydiinayaan horta annaga qabiilkeenna bay is weydiinayaan marka ka kale wuu sheegay wuxuu leeyahay qabiilba ma nihin dadba ma inaga ah usibaynaan dad u ahayn haddaynu dad nahay ummadaasaynu ka mid noqon lahayn oo halkan ma aynaan fadhineen ey baa u imaanaya sheekada iyagoo wada eygu dhabtoodu ku fadhiisanayaa dabadeedna waxaa runtii ay isla garanayaan sheekadu way dheer tahay inay dadka eyda iska xigaan oo eyda tan ay wax isu yihiin muddaa ka soo wareegaysa waxay go'aansanayaan wixii mooryaantii la odhan jiray xamar qayb ka mid ah inay ku biiraan si ay naftooda ay u dabiraan bal ciduuna ay u yeeshaan laakiin nasiib darrada jirtaa waxay noqonaysaa mooryaantii lafteedii baa loo diidaya waayo qabiil maaha mooryaantu qabiil bay u kala fadhidaa ilmahaasi duruufaha noocaasa buu marayaa marka sheeko dheer oo noocaasa bay ku socotaa aad baad u mahadsan tahay marka sheekadu waxay ku salaysan tahay dhacdooyin dhaba oo bulshada ka dhex jira laakiin waa sheeko aad curisay so waa sidaa weeye soo ma aad iyo aad waa sheeko anigu aan curiyey oo sheeko faneed ah laakiin runtii ka turjumaysa kuna salaysan dhacdooyin jira oo dhacay oo ilmahaasi marxaladaha uu maraya markaad akhridid baad ogaanaysaa meelaha la marayay iyo sida xaalad walba uu uga dabaalanayay waxaa dhacaysa waqtiyada ka mid ah inuu shabaabka ku biirayo ilmahaasi in la xidhayo dadkii lala xidhay ay shabaabka ku wada jireen in qabiilooyinkooda ay soo damiinanayaan laakiin isaga cid damiinata la waayayo haddii la sii daayo xitaa meel uu aado garan maayo waayo qabiil uu taga heli maayo waa la dilaya shabaabka laftiisii baa dilaya ama cid kale dilaysa marka mar walba waxa ku jirta erey yar oo chapterada oo cutub kamid ah ku bilaabayo oo aan leeyahay in yar oo suugaan ah oo hal erey ku socoto dhibanaha oona dhibana wuu cabanayaa dhibaata lagu hayaa cidnaba muu dhibin isagu waxa ugu sii dhib badan dhibkana xuduntiisu tahay wixii loo dhibay haddii dhibane loo sheegi lahaa dhibku waxa loo heli lahaa xalaalaya wax loo dhibay ee u geystay soo garan maayo wixii loo dhibay hadduu heli lahaa xitaa xal heli lahaa ma oga wax loo dhibayo marka sheekadu waa sheeko noocaas runtii dee waqtigaa iska gaaban buuggaa laga akhrisan doonaa aad baad u mahadsan tahay buuggaa laga akhrin doonaa inta kale buuggani muddo weyna la yiilay waa buug la yaqaan weeye oo kuwii ugu wanaagsanayo sanadkan hadda anigu aan akhriyay ka mid ah hal su-aal oo kale aan ku weydiinaya iyaduna haaya maya ah buuggani maadaama anigu aan turjumaan ahay tarjume ahay oo dhanka aan baryahan howla ka hayay buuggan ma isku dayday inaad u rogto afaf kale wuu ku habboon yahay waan ku fekeray laakiin waan jeclaan lahaa haddii ay cid xilkaa iga furanaysaa in la helayo laakiin aad baan ugu fekeray inaan u rogo oo af kale lagu turjumo marka waan jeclaan lahaa haddii la helayo waxaana ku dari lahaa guur baa imaanaya illee qofkan waa qof nool oo bini aadam ah oo markuu koro oo meel gaadho guurka laftiisa xujadaasaa ka hor imaanaysa yaa tahay iyo ciddaaya baa tahay marka wax badan baa ku jira la kofar garaynaya laakiin aakhirka kolley sheekadu meel bay u biyo dhumanaysaa ma is heli doonaa ilmaha kani ma guursan doonaa reer ma yeelan doonaa isagu siduu ku dhashay ma ogaan doonaa buuggaa loogu tegayaa
marka magacan dhibane aad buugga u dooratay dhibku dhan kastuu ka jira maahan ilmahan keliya dhiban maahan dhibka lagu hayana keliya maahan waa dhib ka ballaaran inta ilmaha haysata waa dhib bulsho weeye macnaha sidaan u gartay aad iyo aad halkaas kaga imanaysa waa dhib bulsho waa anigan dee maray masaajidkii maray waa anigan maraya maxaa la yidhaahdaa hooyadu jacaylka ilmaheeda u qabto laakiin culayska bulshada aawadeed aanay qaadi karayn hooyada waalidkeed inay ceeb ka yaxyaxayaano gabadheeda iyagoo jecel ay ilmahan waa lagu khasbayaa inay tuurto oo laga akhri doono ilmahan moogta ama dishee waa buugga laga akhrin doonaa sababtay kudaafada u geysay ma garanaysa waxaas oo dhan aad baad u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaya sida waqtiga gaaban ee aynu haysanay aad nooga dharjisay buugga iyo nuxurkiisa buugga wuu yaalaa maxamedna wuu inala joogayaa ciddii iibsatana wuu saxiixayaa aad baan kaaga mahadcelinaya soo dhowo marka asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu haddana waxaan u yeerayaa sakariya cismaan hadduu inala joogo weli sakari soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan dirin sakari soo dhowow waa markii ugu horreysaan u malaynaa isku hor fadhiisano halkan oo aan anigu muddo imanayey ma huba inaad buug hore kusoo bandhigtay laakiin caawa waxaa inoo yaalla buuggaaga caanka ah ee anugu aan garanayo la yidhaahdo boojin kusoo dhawo horta Somali Week Festival waa sanadkiisii 16aad weeye waan ku faraxsanahay inaan caawa anigu buuggaaga kala sheekaysanayo bismillah buugga anigu su'aalo badan ku weydiin mayo sidii akhyaarta hore oo kale aan doonayaa inaan caawa idin fasaxo cabaar marka waqtiga la gaarana waan ku qaban waxaan doonayaa buugga boojin iyo xigmadiisa iyo nuxurka uu leeyahay bal iyo magaca ruuxiisa oo dib kaa weydiin doono bal inaad kala sheekaysato dadweynaha na hor fadhiya caawo soo dhowow bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa askari cismaan waxaan ahay sida la sheegay buuggaas boojin ninka qoray buuggan horta aad u mahadsan tahay boodhari waa markii ugu horreysay labadeena aan is arkayno laakiin hadda kahor waa ismaqalnay reer londonna waa ahaa laakiin waxaan maleynayaa markii ugu horreysay oon imaado festivalkan anuu wax sida inaa imaado waa ku faraxsanahay midda kale inaa hadlaya ma moodeenba waa dad kale iga mudanaa jooga maadaama buuggayga sanad hadda uu jiro waxaan is lahaa waa laga dharagsan yahay marka aad u mahadsan tahay soo dhowo adna waad mudan tahay marka buuggan boojin horta waa sheekafaneed waa buug ma ahan buugta waxa saxda laga qoray oo non fictionka ma ahan waa sheekafaneed waa buug maaragtay ku saabsan Soomaaliya waliba magaalada Muqdisho sanadihii 2000 ilaa wixii ka dambeeyay adiga ilaa 5 sano ugu horeysay ilaa 2005 laakiin xoogiisa waa ilaa 2002 xilligaas oo xilli aniga xamar aan deganaa anoo yar wax ku baranay oo magaalada maaragtay si fiican u fahansanaa sideedan waxaan aaminsanahay waxa taqaano fiican in wax laga qoro oo maaragtay si wixii ay dareen gooniye kugu lahaadaan sababta buugga marka aan u qoray haddaan galo intaanan xogsaabsiga gelin waagaas xamar aad bay uga duwaneyd sida hadda ay tahay markii ka horreysay oo ka duwaneyd wixii ka dambeeyay oo ka duwan tahay waa xilli 10 sano ay dawlad la'aan ay jirto magaaladu wax iskuul yiraahdo ma jirin markii dambe waxay bilowdo oo dawladahan carabta ay sameeyeen maahane dad yarna ay dhigtaan caafimaad fiican ma jirin marka laga reebo wax yar oo maaragtay macaawino ah loo sameeyay shaqooyin ma jirin magaalada intooda badan waxa shaqeyn jiray maamooyinka abayaashuna waxay ahaan jireen dukaamada maamooyinka dad ilaaliya maaragtay magacyo badan loo baxshay oo maaragtay wax marka xilli waxay aad u xiiso badan gaalada iyo shaqo la'aanta ka jirtay darteed aad bay u adkayd maaragtay dadku warta waa aad u lugeyn jireen meeshan hadda yartaan xamar doolarka lagu raacayo 2 daqiiqaba ma ahayn waa la lugeyn jiray basas yar baa shaqeyn jiray gaajada jirkaas waxa dhici jirtay oo aad loola yaabi jiray xabadii sigaarka oo qofka dhalinyarada uu shito asagoo jooga meeshan 3 mayl oo kale lagu damiyaa si la isku sii dhiibayo sababtoo ama haysan maaragtay wax marka magaalo noocaas ahayd waxaan ogaaday marka hadda yartaan in xilligaas oo dhan la iloobay
waxyar kadib dhowr sano 6 sano kadib waxaa yimid maxkamadihii kadib Etoobiyaankii baa soo galay kadibna maaragtay dowladihii kale isbedelay xilligaas waa la iloobay xilligaasna xilli aniga aad ila xiiso badan buu ahaa marka buug wuxuu ku saabsan yahay maadaama sheeko faneed yahay haddana wuxuu ku saabsan yahay xilligaas shaqooyinkii waxbarashadii dhaqankii magaalada siday ahayd qofkii waxaan jeclahaa marka buuggaas akhristo inuu xilligaas dhex tago marka waana buug maaragtay alxamdulilah aad loo akhristay aad loo gatay hadda wax badan ma yaalaan wadankiina waa dhammaaday aad loo soo dhaweeyey maaragtay weliba markii ugu horreyso uu soo baxay intaan xayisiinayn cidna nagama hoos qaadin dadka maamul baa buwaag loo xayisiiyaa waa ka daaleen laakiin markii arkeen uu soo baxay oo laisku sheegay markaas uu maaragtay uu baxay ilaa laga soo wacay gobolada dhan inaan wareegay ilaa maaragtay aan gobolada dhex laga bilaabo ilaa Hargeysa aan tagay magaalo walbana dadku ayaga soo dalbanay ugu soo dhaweynayo maaragtay marka waa buug noocaas ku saabsan insha Allah waxaan jeclahay cidii akhrisina ka heli doonto aad baad u mahadsan tahay Sakariya Ismaan waa noo farxad inaan kula akhrino annaguna oo caawana uu hor yaallo dadweynuhuna ay halkan ka heli doonaan Sakariyana uu noo sii joogi doono marka waxaan doonayaa buugga gudihiisa inaan galo ma doonayo waad adiga noo dulmaray xilliga uu ku saabsan yahay waa dhacdooyin kulli xanuun lahaa oo aad si kale u qortay laakiin wuxuu ku salaysan yahay waaqac jiray waaga adigu aad weliba xanuun lahaa aad iyo aad buu ku saabsan yahay magaca boojin inkastoo aanan jeclayn inaan dadweynaha ka carshacarsheeyo bal waxaan jeclaa magacay sidaa ku dooratay horta waa runta buugga waa sheeko faneed waa wax dhalanteeda aniga aan qoray laakiin wax dhan waa wax jiray macnaha qofkii magaal xilligaas joogana wuu fahmi karaa qofkii kalena xilligaas uu dhex tagi doonaa marka buugga magaca waa boojin waxaan u doortay kow inuusan sheekada buugga uusan fasirin haddii magaca la akhriyo la yiraahdo waxaan waa inaan akhriyana ma rabo noocaasna kama helo macnaha qofku waa inuu buugga ka dhex helo wuxuu ku saabsan yahay dabcan magacu buugga waa inuu meel maaragtay kaga munaasab kaga ahaado saas aan u doortay magacana waa magac af Soomaali ah waa erayadii hore oo maaragtay duqa ah laga baxay intaan fasirin macnaha waxyaabaha intaan buuggan waday aan arkay waxa kamid ah buugga magaca buuggan iyo fasiraadiisa qaamuuska Soomaaliga uu ku jira hadda Google ku qorto 2 daqiiqo ku helaysaa 2 daqiiqo ma sakana ku helaysaa haddana dadku Soomaalida wali kuma baraarugsana dadkeena inay raadin karaan eray Soomaali ah hadduu English ahaan lahaa mar hore la soo bixi lahaayeen oo dhihi lahaayeen waan aqaan macnihiis laakiin asaga waa in qofka marka dadka ani soo wacay weydiinaya ka badan macnaha qofkii intuu raadsan lahaa marka laakiin haddaan fasiro marka waa boojin waa bob waxay yiraahdaan guurarkii hore magacyuu kala lahaa marka nooc kamid guurarkii hore oo ahaa guurka laba reerood oo kale markay dirirsan yihiin Soomaalida waa tan qabkooda iyo waa ku adkeed inay reer ay dirirsan yihiin gabar weydiistaan marka waxay sameeyeen jireen inta ku duulaan ka soo xoogi jireen guurka noocaas la yiraahdo waa guur boojin ah marka kadib luqadii waa si bedelanto reer kale oo isku noqdo dad oo arka waxba ciyaalka wax marka laga xoogo iyo waxba la boojiyay yiraahdaan wasla asagi laakiin waa boojayntu waa erayada casriga ah ee Soomaaliga soo gala afka dhalinyarada laakiin aad buu uga duwan yahay anigu sidaan qabo boojaynta iyo boojinta macnaha si ka wadaan laakiin shaqo isku ma laha kaas waa nooc kamid ah guurarkii hore aad baad u mahadsan tahay buugga boojin iyo sidaad muddada gaaban maaragtay nooga dharjisay waad noo joogaysaa adiguna sidoo kale insha Allah dadku markay iibsadaan inta yar ee taala waad u saxiixi doontaa Ilaahay idinka soo dhawow insha Allah waxaad ku dareysay miyaa jira oo ma aad ma san tahay waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo waxa kamid ah dadkii ugu horeeyay oo buugga intuu soo bixin aan u diray soo draft ah oo aad ii dhiirigeliyo emailka wali waa hayaa oo leedahay buugga aad u qurux badan yahay shaqo u baahan yahay hadda laakiin maaragtay waxaan jeclaan lahaa ina hadda aniga kaaga shaqeynayna ay la soo xiriirto hadii kalena waa kaasa marka anna markii waa ka mashquulay markaan Soomaaliya tagana oo dad ila edit gareeyay raadiyana anoo moodo in maaragtay u baahan yahay saxsaxid kaliya markaan dadkii waayay nasiib ay noqotay inaan waayo sababtoo markaan ku laabtay waxaan ogaaday inuu maaragtay uusan bislayn marka shaqadan ka qabtay wax badan ka waa shaqo haddaan ku dhaafi lahaana uu khasaaro ku joogi lahaa haddii laga bedelo qof kale aan u quuray in aniga bedelo maahane marka taasna waxay maaragtay aad baan kaaga mahad celinayaa soo dhawow mar kale waad mahadsan tahay aad mahadsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاشم تعالى سودو adigu mininkan marti kuma tihid wax badan baynu halkan isku arkaynay buugana ma cusba oo sanadka hore baynu barnaamijkan ka duwan ku soo bandhignay oo isla halkan ka dhacay
laakiin caawa waxaan doonayaa maadaama daabacaadii labaad soo saartay ama ay hadda inoo maqan tahay bal inaad wax ka tiraahdo maadaama buuggani uu yahay buugta aan laga xiisa dhicin ee ku saabsan arrimaha bulshada nin arrimaha bulshada ka shaqeeyo aad loogu yaqaan aad tahay buuggan inuu ku saabsan yahay mowduuc gaar ah oo u baahan in wax badan laga yiraahdo buuggan magaciisa waxaa la yiraahdaa Lifeline, A Mother's Story of Hope. waxaa qortay marwada Hashim Ducaale oo magaceeda la yiraahdo Saamiye Cali isagoo af Soomaali ah oo anigu aan tarjumay ayaa caawa halkan inoo yaala waan u bixiyay tubta nolosha autism-ka xaaladda autism-ka loo yaqaano oo ilaa ya hadda magac lagu heshiin karo oo Soomaaliga loo yaqaano aanu jirin ayuu ku saabsan yahay waa hooyo dhashay ilmo la nool xaaladaas oo waliba hadda qaangaadhka dhaafay waxay aad uga sheekaysay wixii ay ka soo martay iyadoo ugu tala gashay macnaha inay bulshadu ka barato iyo siday ula tacaali lahayd ciladaas marka Hashim soo dhawow waxaan doonayaa bal buugga wanaga isla ogeyn hadda xagee xaal maraya waxbarashadii Soomaalida arrintii aad maaragtay aad ugu ololeyseen xagga fahanka ku saabsan arrintan xageebu maraya buuggiisu muxuu ka taray aad mahadsantahay horta qofkii hadalka heli ogaa oo buugga qoray halkan ma fadhiyo marka waxaan taas iga raalli ahaada laakiin wakiilkeedaan ahay oo waan matali karaa waan ku mahadsantahay xaalka meel fiican buu marayaa shalayna madashaanan fadhiyey oo aan luqadda ingiriisiga aan ku hadlay aan si fiican u sheegayay waxa uu marayaa meel wanaagsan bulshada mar walba waxaan ka baraarujinaa inay bulshadu fahamto xaaladda ay qoysaska guud ahaan ilmaha xaaladaha la nool xaalad walba ha ahaatee ama disability-ga la nool ay ku jiraan oo aynan noqon marka bulshadeenii dhaqan walba wuxuu leeyahay dhibkiisa dhaqankan cambaareynta ah in laga gudbo taasna waan tusaale la taaban karaan u sheegaa dadka war dadkii intay siduu xaaji uu sheegayay intay dhaqan ay ka fakerayaan waa caruurtii waxay ku samaynayaan mana aha inuu iyagu dhibka leeyihiin si ay uga ilaaliyaan waxaasoo dhiba waa caruurtii guriga lagu haynay xitaa annagoo joogna meel western oo caruurtii ay ka heli karaan waxbarasho waalidkii waxaan ku qasabnay inay caruurtii guriga ku hayaan ilmahaas yarkaa markuu koraya ilmahaas yarkaa waqti uu wax baran lahaabaa ka dhumaya cambaareyntii ay bulshada u geysatay ayaa waxaa qasbaya marka dadka saamiyoo kalaa haddaysan hadlin aysan ka sheekaynin arrinta iyada qabsatay oo ah hooyo u bareertay dadkoo oo wada caayaya xitaa erey ka mid a ereyada ay isticmaasho waxay ka mid ahayd magacaygii aabba iyo hooyo ay la baxeen inta layga daayay baa la yidhi gabadha haysataa wiilka xanuunsan macnaha taas waxay keenaysaa marka in waalidi iyada marka waxay uga duunaatay oo ilaahay hibo u siiyey inaanay dheg u dhigin wixii dhacayo dhan balse ay ubadkeeda ay ku dadaasho oo ay samayso hab naxariiseed oo ah in caruurta la baro wax walba ay baran karaan ama autism ha ahaadeen ama xaalada kale ha la joogeene arrintan ah in caruurtii ukun camal loo ilaaliyo dhib bay keenaysaa oo waalidiinta waxyaabaha u sheegna waxaa ka mid ah qof walba disability-giisu intay doonto hala ekaatee ability buu leeyahay in lagala tacaalo waxa dhibaya oo challengeska ah oo isaga caqabad ku ah wixii horumar uu leeyahayna cunugaas la baro waxyaabaha aan aad buugga uga sheekaynaya waxaa ka mid ah dadku waxay aad uga fakeraan xisaab carabi computer waxaan ma baran doonaa muhiimadda waxa waaye nolosha asaasiga cunuga in la baro isku filnaansho inuu gaaro waxaan arkay dhalinyaro oo aad intelligent u ah oo autistic ah oo haddana
hooyo iyo aabba ay inay daba socdaan ay tahay si ay hygiene-kooda ama ay iloobayaan. taas macnaheeda macnaha waxa waaye waagii ay yaraayeen. marka waxyaabahan waalidiinta u sheegno waxa kamid ah ha isku dayin cunugan inaad u noqoto ukun camal aad u hayso. wuxuu baran karo waa inaad bartaa. waxaan xasuustaa wiilkayga Ismaaciil 3 jir 4 jir markuu ahaa bambarkii waa laga gooyay laakiin maxay ugu qaadatay in laga gooyo inaan u sawirno oo aan ogaano in uu waqti dheer ku qaadanayso waxyaabo badan oo ku jira. marka waalidiinta siiba hooyooyinka ilmaha cusub hadda haya inaysay u arkin waxan wax caqabada oo Ilaahay ku xujeeyay ay u arkaan raxmad iyo naxariis ay ka gudbi karaan. ilaahayna qofna kuma kalifa wuxuuna ka bixi karin. laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'aha. waalidkan waxaa lagu doortay Ilaahayna uu og yahay inuu waxaan ka soo dhalaali karo. waxay siinaysaa marka yididiilo anoo ku beeqaaminaya timeka maahi awtaki aad baad u mahadsantahay. inteenaba haddaanan annaga aanan haysanin caruur autistiga walaalkeen ama walaasheen baa leh asxaabteennaa leh fadlan hadiyadda ugu wanaagsan aad u samayn kartid waxa waaye inaad afkay ku fahmayaan ingiriisi iyo soomaaliba aad hadiyadaas u geysid. waanad mahadsantahay qofkiiga mudnaa anoon ahayn aad baad u mahadsantahay. waxaan ku weydiinayaa ciladan xaalad baa la yiraahdaa waa condition maaha cudur oo qofku la seexdo oo isbitaal la dhigayo oo maaragtay waa qofku noloshiisa caadiga ah ka qayb qaadan karaa laakiin waxa haysata xaalad baa haysata la xiriirta muxuu ahaa abuurtiisa waana wax Ilaahay maaragtay uu ku abuuray weeye. fahanka intee buu la egyahay fahanka aynu ka haysano bulsho ahaan xaaladan iyo fahankeeda waynu ognaho dad baa ceeb oo haysta macnaha xagga naxariista wadiga ka hadlay iyo qaabka adaabta loola hadlo dadka noocaas oo kala waxa dhici karta qofkii culays haysto waalidkii oo ilmo noocaas la dhiban in culayska la sii saaro la xanto oo wax laga sheego oo ilmihii xanuunsanaa iyo hooyadii islaanta ilmaha xanuunsan haysatay iyo doqonkii iyo waxaas oo dhan hadda xagee buu marayaa heerka fahankeenu xagee buu marayaa guud ahaan dal iyo dibadba. fahamkii wuu soo roonaanayaa walose dad badan oo ay ku soo biireen ka faa'iideysanaya caqabadahan oo dadkii ku noqday dawaan idin haynaa iyo halkan aan ka baxnay iyo waxyaabo aan loo baahnayn. dadka masaakiinta qaarkood ay noqdeen nin buka 100 u tali. autismka sidiisaba laba qof oo isku mid ah isku si uma asiibo. aniga haddaan ku raaa autism baan aqaanaa been baan ku sheegay laakiin wiilkayga aqaanaa aniga qof walba waalidana wiilkiisu yaqaana ama inantiisu gabartiisu yaqaana. waxyaabaha marka aan waalidka u sheego waxa kamid ah war qofkaaga aqoon badan male ilmahaaga ha isciil bidin ku dadaal hadawo oo degdegana ha raadin dhuux geelo la shubay vitamin meel lagu soo xareeyay miracle quraafaadkaas ha fiirinin. waxaan sidiisaba autismka waa habka maskaxda brainka ay u process gareyso maskaxda u process gareyso informationka ayaa ka duwan sida dadka normalka. dad badan ma oga in autistic dadka ah ay qaarkood aad uga maskax badan yihiin inteena. shalay baan ka sheekeynayay ninkan Elon Musk la yiraahdo oo soo saaray Tesla oo hadda raba in dadka dhan oo xidigaha geeyo waa autistic. dad badan oo sidaas oo miiranay jira. waxyaabahan annaga Soomaali ahaan marka uga duwanahay waxaan arkaa dhalinyaro badan oo aad intellectual ah oo wax badan soo kordhin lahaa balse meel waxa jirta markay soo gaaraan xilliga qaangaarka dhibkaas haddaan caruurta laga caawin oo aanan waxay ku fiican yihiin loo sameyn waqtigaasna laga gudbinin ilmihii oo aad u wanaagsan in iskuuladii laga ceeriyo oo ay GCSE xitaa heli waayeen qof A star ahaa waad fahmi kartaa oo lagu yiri markuu 16 sano gaaray iskuulkan ma dhigan karo iskuul kale u raadi markaas haday kharibmaana waa marka waxay nooga fiican yihiin dadkan kale ee arintan ku baraarugay in ilmuhu ayagoo yar caqabadooda lagu dadaalo sidii looga gudbin lahaa waxay ku fiican yihiin genius waxa jira hadda Beethoven ayagoon la barin
wada xafiday notice-kii samayn karana seconds yar waxaa ka mid a madow oon hadlin oo Mareykan ah waxaa la dulmarsiiyey New York intuu duulimaadka socday waxba ma sawireen duulimaadku markii la dejiyey wuxuu sawiray khariidadii magaalada oo dhan wuxuu arkay sarihii oo dhan seconds ayna ku qaadatay inay maskaxdiisa process-keedas laakiin hadduu ka soo horbaxo waa nin aamusan waa nin caraysan waa nin madow waxaa leedahay warkan ama ku dilaa dadkiina perception-kaas ka haystaan laakiin waalidkiis waxay ku dadaaleen wiilkaas inay uga faa'iideeyaan wuxuu ku fiicnaa oo asagoo hadda aan hadlin uu yahay qof maareeyo naftiisa iyo nafta waalidkiisba marka anoo ka faa'iideysanaya waalidiinta waxaan leeyahay fadlan dadka waxay idin leeyihiin ha ku mashquuline inta yarood lacag iyo hagbad aad haysid ha ku mashquulin wax aanan suuroobeyn iyo miracle aan wax walba way dhacaan ilaahaba ku caalina wixii dhici doona laakiin adigoo ku dadaal caqabadaas inaad ka gudatid dadka waxay ku leeyihiin dheg ha u dhigin dadowna haddaydan na caawin karin deecayada naga daaya waa mahadsantihiin asalaamu calaykum aad baad u mahadsantahay Haashim booganina isaguna uu inoo yaalaa isagoo ingiriiskii ay ku qortay saamiya iyo tarjumadiisii af Soomaali ah oo anigu aan tarjumay kolley heerkii iyo xikmadii ay ku qortay asalka maan gaarsiin oo waan is ogahay laakiin waxaan isku dayay inaan aad u dhadhaweeyo baan isku dayay labadana waa inoo yaalaan caawa haddii Ilaahay yaraado aad baad u mahadsantahay Haashim waxaan kaloo u mahad celinayaa qoyska doortay inaanay la aamusin arrinta oo ay dadka la wadaagaan wixii soo maray baan ayaguna baan aad baad u mahadsantahay waad maqlaysaan buugga wixii ka soo baxa marka la iibsado iskuulkaas dadka loogu talagalay oo Hargeysa laga furay oo anigu aan sawiradiisa arkay aad u wanaagsan wax aad uga duwan wixii hore loo sameyn jiray ayaa lagu taageerayaa Haashim aad baad u mahadsantahay saameyne salaan naga gaarsii una sheeg inaan u mahadnaqeen aad baad u mahadsantahay haddana waxaan u yeerayaa Cabdirasaaq Xasan Daahir hadduu inala joogo fadlan soo dhawow oo halkan ila soo fadhiiso Cabdirasaaq soo dhawow waxa weeye adigu hadda horna waa isku aragno maleynaya agagan oo buuggii kugu horreeyo aad soo bandhigtay inuusan ahayn baan filayaa may waa buuggii ugu horreeyey waa kii kugu horreeyey laakiin halkan wada iman jirtay may xaggan iminku ma igu horreysa aad baan ugu faraxsanaa marka kaba sii fiicanba inaana Hargeysa aad iyo aad kaba sii fiican inaan caawa anigu meesha kugu soo dhaweyn habeenka kugu horreeyay inaan anigu ku soo dhaweynayo ku soo dhaweey Somali Week Festival waa sanadkii 16aad aad baan kaaga mahadnaqaynaa caawa inaad halkan nala soo xaadirtay oo aad maaragtay na soo sharaftay waxaynu ka sheekaysanaynaa Cabdirasaaq buuggan la yiraahdo idishaya ha ii celin sidii caadada caawa aan ka dhigtay baan yeelayaa su'aalaha kugu badin mayo waxaan doonayaa inaan sidii akhyaarta ka horreysa ay yeesho kale bal caawa buugga idishaya ha ii celin iyo nuxurkiisa inaad si yaro kooban oo sidii maaragtay aad arkaysay inaad adiguna yeesho soo dhawow buuggan baan doonayaa caawa bal inaad na fahansiiso waa sax aad iyo aad baad u mahadsan tahay Boodheri sidaad sheegtay madashan maanta igu horreysa dalka laftiisana bishan baa imikun baa igu horreysa marka dalka laftiisa waan ku cusubahay dalkoo dhanba bishan baa dalkana ku soo dhawow qurbahana ku soo dhawow markaas soo dhaweynta labadaba waan qaadanayaa aad baad u mahadsan tahay buugga idishaya ha ii celin horta ma qoraal aan sameeyo ama aan isku dayo waxa weeyaan kii igu horreeyey buugna ama dhigane weynna ma aha oo sida aad ujeedaanba dhiganaha yar intiisuu ku weyn yahay waxa markaa igu kalifay inaan dhiganahan qoro hal abuur baan ahay suugaanta wariya marka laga tago qoraalka waa halkaa waan iloobay abwaan
waan maqlay iyadoo maaragtay hal-abuur. magacaaga la raacinayo halabuur inkastoo magacaagu aan anigu aad u beeqaansado oo maaragtay anigu halabuur baan ka door hal abuur bidaa. aad iyo Hal-abuur baan aad ka aad iyo door aad hal abuur ama suugaanyahan labada kolba marka buugga ama dhiganaha waxay ku dhaliyey sida caadiga ah dadka suugaanta qoriya ama hal abuuradu sida dadka qoraayada oo kale dareenka ama mawduucyada ay ka falceliyaan ayay wax ka yidhaahdaan marka buugga sheekooyin baa ku jira sheekooyinka sheeko ka mida oo ah sheekada aan ugu magac daray buugga oo la yidhaahdo sida buugga magaciisa ka muuqatay dishay hay celin ayaan muddo imika laga joogo 5 sano ku beegan 2019 aan kula kulmay deegaan ka mid ah deegaanada Soomaalida sheekadaasi markaa waxay markaa noqotay sheeko aniga aad iga cajab gelisay isla markaana aan ka murugooday goortaa markaa waxaan ku jiray shaqaan ku jiray wasaaradda cadaaladda waxaan u sameynaynay cilmi baadhis ku saabsan bal dadku sida ay ama inay garan karaan meelaha ay cadaaladda ka raadsadaan haddii tacaddi uu ku dhaco marka anigoo cilmi baadhistii ama xog ururintii annagoo ku jirna ayaan markaa sheekada la kulmay sheekada markaa waa la iga sheekeeyey inan ayaa waxa ay ku barbaartay deegaan miyiga agagaarka miyiga ah ama tuulada ilmahaa yari ama inantaa yari waxbarashaday aad u jeclayd dugsigii hoose dhexay bilowday iyadoo ka bilowday tuulada markaa ay ku noolayd muddo markii ay waday waxay gaadhay xilligii maaragtay markaa lagu samayn lahaa ama la xalaaleyn lahaa ama gudniin fircooni lagu samayn lahaa inantu markaa iyadoo waxbarashadii wadda waxbarashana aad u jecel ayaa markaa waalidkeed ay isku raacayaan in markaa la gudo waa la gudayaa mudday dabadeetana waxbarashadii ka maqnaanaysaa sida caadiga ah dee gudniinka waxaa samaynaysa cid aan maaragtay aqoon caafimaad u lahayn iyo arrintoon aan u lahayn waxa ay ku samaynaysaa qalab aan la hubin waxa ay yihiin xubin ka mida xubintii qofka ayaa la dhaawacayaa dhibaatooyin badan baa dee soo gaarhaya marka inantu dhibaatadaasi ka soo kaban waayeysaa way aad bay u xanuunsanaysaa waxbarashadii iyo aqoontii bay wadi kari waayeysaa waxbarashadana aad bay u jeclayd haddana waxay isku qasbaysaa inay waxbarashadii doonato ay tagto iskuulkii markay tagto ayaa haddana iskuulkiiba waxay kala kulmaysaa soo dhoweyn la-aan xagga macallimiinta iyo cidda bixinaysa oo mar kasta oo mawduuc laga hadlaya ama mar kasta oo lasoo hadal qaadaba niyadda ka jabinaya oo inay inan tahay u sheegaya oo u sheegaya in berriba la guursanayo u sheegaya inaanay kolleyba waxbarasho dhamaysanin u sheegaya inaanay waxbarashaday waddaa macno buuran lahayn ay guriga joogto isla markaana ay xaafadda u shaqayso marka ay muddo sidaa ku jirto dugsigii hoose dhexay dhammaynaysaa kadib dugsi sare ma laha deegaanka ay degan tahay waxa markaa ay noqonaysaa ama inay barta waxbarashada kaga hadho ama inay raadsato farsamo ay magaalada ku timaado kadib muddo waxa ay waalidkeed barbaridaba waxaa la isku raacayaa in magaalada loo soo diro magaalada cid ehel dhow ah uguma noola laakiin waxaa jira nin ay aabbaheed qoys fog yihiin isxigaan kaasaa markaa lagu soo xidhayaa lagu odhanayaa inantu hayd ina shaqayso waxaanay doonaysaa inay wax baratee bal waxbarasho gurigii baa la keenayaa guriga waxaa kaga soo horeysa ninka adeerka ugu beegan inanta xaaskiisa oo aada u dhib badan doonaysayna dee cid u shaqeeyo marka waxay aada ugu hor istaagaysaa waxbarashadii way ku qayliyeysaa way dhibaysaa
dhibaato badan bay u geysanaysaa inantii waxbarashadii ay u timi ma bilaabayso marka waxay isku dayeysaa bal in maadaama maalintii oo dhan ay shaqaynayso casarkii oo ay firaaqo yar hesho 2 duhurnimo ilaa 4 inta laga gaarayo inay markaa meel aqoonta supplementaryga lagu dhigto inay markaa ka doonato ay dhigato sidii iyadoo ku jirta ayaa islaantu inan ay dhashay baa jira isaguna oo markaa nolosha ka dhacay habeen oo dhan maaragtay meelaha ku maqan soo qaylaya maalin oo dhanna hurda wax laala wuxuu qabtaa ma jirto habeenkii uu baxaa maalintiina wuu hurdaa inanta markaa waxay dhibaato ka haysataa markay guriga hagaajinayso isagii baa hurda mana ogola in la toosiyo adigu muddo waxay sidii ahaataba maalin maalmaha ka midaba loo kala tegayaa iyadii iyo isagii oo keliya guriga isugu soo haraya dabadeetana uu damcayaa sheekada soo gaabiye markuu damco dabadeetana inantii kufsi buu geysanaya oo kufsanaya weliba isagoo keliya ma aha mid kale oo la joogay baa isaguna kufsigii la geysanaya kufsi wadareed inantii markii ay arrinkii ku dhaco iyadii waa inan yar oo aan ehelkeedii la joogin marka horebana lagu hayay tacaddi hanjabaad ah ma hadli karto way baqaysaa kadib way aamusaysaa muddo wax markay aamusnaato maadaama marka horena gudniin fircooniya lagu sameeyey kufsi wadareedna ku dhacay oo la qasbay dabadeetana xanuun baa ku dhacaya caabuq bay qaadaysaa muddo markay qariso ayaa dabadeetana ay marka dambe adkeysan kari waaysaa hooyadeed buu sheegaysaa arrinkii inuu kufsigii dhacay kadib waa lala soo hadlayaa islaantii adeerkeed qabay marka horeba ku dhibka badnayd markaba sheekada waxay u rogaysaa in iyadu inanka ay doontee aanay waxaas waxba ka jirin inankeeduna uu saliim yahay dabadeetana inantiibaa dembigii oo dhan dusha laga saarayaa inantii marka dusha laga saaro reerkeedii iyada aabaheedii hooyadeedna maba arkayaan iyada dhibaatada ku dhacdee iyaga waxa kala daran bulshadu waxay odhanayso iyo inantoodan kufsatay ninka markaa dee islaantu sidee ka dhigtay waxa weeye iyadu wax samaysay markaas si arrinka loo dambabaso oo bulshada aanay reerku u ceeboobin iyagu ceeb bay u arkaan moogti waxaa la isku raacayaa in inanka iyo inanta la isku dhiso si la isugu asturo ninkii dhibaatada u geystay kufsaday weliba isaga iyo saaxiibkii ay u geysteen ayaa lagu qasbayaa inay guursato iyadoo ilaalinaysa sharafta reerkooda waayo warku hadduu dibadda u baxo la idhaha inantaa la kufsaday reerkaa ceebaysan inantii markaa dulmigaasa laga gelayaa ninkii baa loo dhisayaa ninkani ma aha nin maaragtay dee nolosha door kule ma aha guri baa loo kiraynayaa biil baa laga bixinayaa marka isagu sidii caadadu ahayd habeen oo dhan uu maqan yahay maalin oo dhan uu hurdaa mudday wada joogayaan dhib kastaba ha ku qabtee uur bay qaadaysaa uurkii iyadoo leh habeenada ka mida oo aada u xanuunsanaysa ayuu imanayaa goor dambe dabadeetana cunto uu ka odhanayaa cunto may diyaarisay waxay ka odhanaysaa horaan xanuunsanaya anigii baaba taagdaran wax ma diyaarinin wuu xanaaqayaa iyadoo xaamilaa buu dabadeetana dilayaa laad buu la dhacayaa inantii markaa iyadoo marka horena xaamila ahayd bay dabadeetana dhiig baxaysaa waa lala yaacayaa dhakhtarkaa la geynayaa dhakhtarka marka la geeyo waxaa la odhanayaa inanta arrinkeedu waa serious ilmaha caloosha ku jiraana waxa weeye waa meyd iyadaanu khatar ku yahay waa in qalliin lagu sameeyaa laga soo saara haddii kale labadooda way sugayaan dabadeetana waxaa dhacaya waxaa markaa loo baahanayaa saxeex ninkii markaa qabay uu diidayaa inuu saxeexo kadib waxaa la odhanayaa hal la sugo aabaheedoo ka soo baxaya tuuladii dhakhtarka dhowr jeer buu ku halcelinayaa in arrinku serious yahay oo ay khatar tahay adigu sidii baa la sameynayaa aabaheed baa imanaya aabaheed markuu imaadana wuxuu imanayaa inantii oo dhimatay oo meyda sidii bay dabadeetana inantii ku nafugaysa ay ku dhimanaysaa marka sheekadaas dareentaabad kale ayaan markaa bal is iri
inantaa maxaad u qaban karaysaa koley dee iyadu way dhimatay laakiin waxaa keliyaad qaban kartaa waxa weeye inaad sheekadeeda bulshada gaadhsiiso si aanay ugu dhicin kuwa dambe bulshaduna ay u maqasho waayo cod bay dee weyday cod u hadashay weyday inantaasi buugga markaa magaciisa idishaya hay celin waa sababtaasay ku timi iyadii way dhimatay marka sheeko kasta oo buugga ku taalla waa sheekooyin markaa noocaas oo qisooyin markaa markii dambe aan u kuurgalay aan soo ururiyey oo sidaas oo kale ah weeyaan qiso walba waxa xaggiisa dambe markaa la socota qofkaa dhibana ahi ama inantaa iminka dhibaatadaasi ku dhacday haddii ay nala hadli lahayd oo iminka inta barta lasoo fadhiisiiyo la odhan lahaa bal noo waran maxay noo odhan lahayd ama fariintay qabriga ka soo diraysaa muxuu yahay fariintiiyo markaa maansa ah ayaan dabadeetna curiyey inantiiyo markaa hadlayso oo dee noo warramayso oo le dhibaatadaasaan qabaa taasaan qabaa taasaan qabaa waxaasaa la geeyey aad baad umahadsan tahay waa sheeko dareentaabad la weeye waqtigu aad buu inoo hayaa laakiin inaan kaa gooyaan ka xishooday maaragtay maadaama sheekadu ay aad noogu socotay waa sheeko murugo leh laakiin waa wax maaragtay aan la qarin karin oo dhaca kolley bulshada aad la noolayd iyo muxuu ahaa maadaama nin xagga cadaaladda kasoo jeedana maaragtay oo maaragtay xiriir lada aad tahay kolley waxyaalo dhacayay ama maqal ama arag unbay ku salaysan tahay waana wax jiro weeye oon la qarin karin marka aad baad umahadsantahay sidaad noo deeqsiisay waynu ka sheekaysan doonaa maaragta haddii waqti noo haro waan kugu soo dhaweynayaa London iyo qurbahan la sheego ee halkaana aad baan ugu faraxsanahay inaad ku soo aadin iyadoo aad u qabow oo iyadoo iska ladan aad timid waynu isla joognaa buuguna waa inoo yaal sidoo kale qofkii soo iibsada waa loo saxiixi doonaa aad baad u mahadsantihiin dadka sidaad u dhagaysateen iyo dulqaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أدعو ماشان أضياش هذا كجرنا سنة ولا بوسكوارك نبغى نملينا أنتي دور كسرنا هذا قدام به أنت بدن ها. إله بمهاد لنا أنه مركلة نبغى يعرف ما خمنا هنا سكوارك هذا قد كرت هالكن ده أنا قاعد أعمله. مركا أديك الصور ده وين تأت كوجو بدن ما يود أهل بيت كي ما ركتي بعد هاي مركا وحنا كلها يا هرتال وحنا كشة كيسرنا dhowr boog boogaguma yara horena qaar baad u soo bandhigtay laakiin waxaan doonayaa inaan xoogga saaro shaqooyinkaaga u dambeeyay oo uu ka mid yahay boogan qiimaha leh barakaysan judka tarjamada af Soomaaliga ee cutubka 29aad ee Quraanka Kariimka juska tabaarak shaqooyinka u dambeeyay buu ku jiraa aad u qurux badan baan doonayaa inaan si gooniya kaala sheekaysto marka guud ahaan horta waxaad ii dul maraysaa asagoo inoo dambaynayaa labadan buug oo kale oo aan iyagu cusbayn buug waxaa la yidhaahdaa dumar tale ma laga dayay waan xusuustaayo buug wuxuu ahaa waagii uu soo baxay doodiisu aad xaami u ahayd buu ahaa waa isla asaga wey karna marka bal waxaan doonayaa ilaa iyo waagii buuggan aad qortay doodo badan baa ka dhashay dhan maaragtay aan lagu aqoon raggu inay maaragtay doodaha ka curiyaan baad dood ka curisay si fiican bal horta ilaa iyo waagii falcelintii ka soo noqotay buuggan dumar tale ma laga dayay runtii iyo meesha xal marayaan doonaya maxaa isbedelay aad iyo aad baad mahadsan tahay buuggu imika waa dhowr iyo 20 jir ilaa maalintaas uu soo baxay ilaa haddana doodiisu way taagan tahay su'aalaha la isweydiinayana waxaa ka mid ah dadka qaarkood baaban ereyga isweydiiyo horta maxaa looga jeedaa dumar tale ma laga dayay halkaas markuu qofku ugu horreysay u istaagaaba maxaa horta looga jeedaa ereyga dadka qaarkood waxay u qaataan in la leeyahay dumar waxba lama weydiiyo oo kale qaarkoodna maxaad uga jeedaa ma dumarkii ma waxaad ka wadaa arrintii gender balancegii iyo sinaanshihii ragga iyo dumarkii ma sheekadaasad wadaa ayay odhanayaan runtii laakiin dood kastaba ha ahaatee sheekadu uu buugu ku saabsan yahay oo ah tafsiirka taariikhda siyaasadeed ee Soomaalida in la macneeyo xaggaynu ka nimi xaggaynu hadda meeshaynu nimi maxayna keenay xaggaynu ku soconnaa ma muuqdaa meel wadadan aynu haynaa meel ay ku dhammaataa ma jirta
su-aal noocaasa uu ka jawaabayaa iyo aakhirka in waddadan aynu hadda hayno oo aynu muddo dheer soo haynay meesha ugu dambaysa ay ku dhammaanayso ay ku qoran tahay waddadani meel ma tagto marka jid aan meel tegin oo haddana muddo dheer la hayay halkii lagaga bixi lahaa meel lagu noqdaana aanay jirin ayay su-aashani markaa ka dhalanaysaa oo ah wixii hore halkan lagu yimi nama anfacaane wax kale ma samayna markaa ragga toodii aragnaye dumar talo ma laga dayay caynkaas way buu ragga toodii aragnaya dumar talo ma laga dayay sidaas weeyaan aad iyo aad doodaasi kolley mudday soo ulkamaysay oo ma cusba waa sidaan u sheegay waan xusuustaa waagii aad baa looga sheekaysan jiray dooddaa iyadaa maxaa kusoo kordhay maxaa iska bedelay maxaa hagaagay kolley sidii 20 sano ka hor loo qariibsanay looma qariibsanaya hadda habase ahaatee weli lama gaadhin meesha ay dood u socotay marka weli way taagan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay buugga dumar talama laga dayay oo aan u malaynayo inaad dib u soo daawacday waa daabacad cusub dabcan iyo dee ama qaab qoraalka ha noqoto ama waxyaalo fara badan oo dib loo hagaajiyey marka waa mawduuc qoto dheer oo u baahanaya keligiis baa habeen dhan u baahanaya marka halkaasaan kaga tegayaa buuggu wuu yaalaa waxaan doonayaa shaqadan aadka u barakaysan ee aad juscamana waa aniga kula ogaa oo hadda ka hor haddana tabaarag baad kusoo dartay juskii 29aad qur-aanka marka kor laga bilaabay hoos loo wado marka waxaan doonayaa arrinta tarjumiddu aad bay aniga xiisa iigu leedahay tarjumidduna way noocyo badan tahay oo way xeelada badan tahay oo way dhibaatooyin badan tahay way farxada badan tahay mawduuc kastoo la tarjumanaya af buu ku hadlaa tarjumaadaha ugu dhibka badan leh mawduucyada laga tarjumo waxaa ka mid a mawduuca diinta baa ka mid ah sababto waxa weeye isaga tarjumid uun maahane waxaa ku jira balaaqo kale oo aad u xeel dheer gaar ahaan qofka tarjumaya diinta waxaa loo baahaya inuu diinta saldhigyadeeda oo dhan iyo mabaadi'deeda iyo maaragtay iyo fiqigeeda aad ilaa xad u yaqaano bal waxaad iiga warantaa shaqadan iyo sidaad u qaabishay iyo siday hadda kuugu muuqato kolley juski labaad baad soo saartay hadda iyo sida loogu baahan yahay baahida jirta aad iyo aad baad mahadsan tahay tarjumaadda qur-aanka kariimka uguma horreyn anigu dabcan ugumana dambeyn doono habase ahaatee si marka la eego taariikhdeena faca dheere ee muslimnimada ah iyo sida aan culumta diinta islaamka loo deegaameyn oon afkeena loogu qorin isma laha in kitaabka qur-aanka kariimka ah oo aynu dadka ugu xifdiga badan nahay aan la tarjumin waqti ka horreysay 80aadkii oo waliba malaacid kale inagu caawisay waa arrin aad iyo aad u yaab badan bay ahayd saasooy tahay haddana tarjumaaddii la sameeyey si fiican u faaftay tarjumaad dhammaystiran bay ahayd oo wanaagsanayd laakiin marka aad akhriyayo kitaabkaas oo guri walba soo galay wuxuu igu keenay adkaan fara badan oo inay ii sahlanaan weyday inaan intaan akhriyo hal bage dhammaystiran mar keliya waxaan dhinac kale arkay iyada oo ku tarjuman luqado kale sida luqadda swedishka ah oo ah luqad aan aqaano oo marka aad ku akhriyayso tarjumaadda afka swedishka markaad ku akhriyayso aad moodayso inaad sidii aayaddu carabiga ugu qorreed inay u qoran tahay yacni macaanka way soo dhowaatay fudaydka markaa su-aasha isweydiiyey waxay ahayd maxaa soomaaliga noocan oo sidan oo kale maxaa qur-aanka loogu tarjumi waaya af soomaali si fudud maxaa loogu tarjumi waaya dabcan aqoon badan bay u baahan tahay habase ahaatee maadaama luqadda af soomaaligana si fiican baan u aqaan tafsiirka qur-aankana waan macallin baan u leeyahay waan dhigtay saas daraaddeed waxaan isoo ku dhiiriday inaan sameeyo waxaanan ka duulay qaacido la yidhaahdo maa laa yudraku kulluhu laa yudraku julluhu wixii aan la wada gaari karin lagama wada tago haddaan xataa haddaan aan wax dhimo
dooda dambe ayaa igu sixi doonta laakiin inaan dadaalkayga aan waxba la harin oo aan sameeyay aan isku dayay inaan luqadda yar fududeeyo fahamka u soo dhoweeyay dadka afkooda hooye ay kaga bogtaan oo looga tarjumay marka runtii just camo waan tarjumay just waarina waan tarjumay suurado googoosa sida suuratu yaasiin iyo suuratu axzaab iyo suuratu nuur iyo suuratu lkaaf suuradaasna waan tarjumay ma daabicin oo daabacadaan kuma soo saarin weli laakiin waan dhammaystiray oo inaan mid walba gaar u daabacaan doonayay waana ujeeddadaas in soo dhoweeyo runtii waxaan isku dayay maraajic aad u fara badan akhriyo maanta alxamdulilah wax waliba online weeyaan waxaad helaysaa tafasiirkii ugu horreeyay la qoray ilaa kii ugu dambeeyay la qoray baad helaysaa itijaahaadka kala duwan ee madaahibta islaamka oo dhan ayaad helaysaa say aayadaha u macneeyeen iyo doodahoodii kala duwan marka macnihii wuu soo dhowaanaya macno wanaagsan baad helaysaa marka maalin kasta waxba ay kordhaan anigaygaas wixii aan sanadka hore daawacay waxaan ahayn baan mar walba faa'iida marka insha allah maqbuul baan u malaynayaa inuu yahay meel bannaan inay buuxinaysaan waa aad baad u mahadsan tahay su-aasha iigu xigtaa waxa weeye juska labaad qur-aanka marka hoos laga soo bilaabo baad marinaysaa hadda 28 kala hadhay 28 kala hadhay inkastoo aan qaybo kala tarjumay haddii alla kugu simo ma isku dayi doontaa inaad intixada sii wado hadafku waa intaas waa mashruucayga mustaqbalka inaan dhammaystiro qur-aanka kariimka insha allah laakiin aan usoo saaro tartiibtaas si degdega maaha mar walba jus aan soo saaray insha allah aad baad u mahadsan tahay marka anigu ku iri turjumiddu xeelado badan bay u baahan tahay markaad tarjumayso qur-aanka oo ka mid ah waxyaalaha muqadasaadka aynu aad u xushmaynaa waa maxay xeelada aad adeegsataa xagga turjumidda marka laga eego nadariyaadka turjumidda xeeladaha aad adeegsato maxaa ka mid ah ta ugu muhiimsan horta waxa weeyaan laba arrimood baan runtii ku dadaalaa mid waxa weeyaan horta macnaha ee meesha ku qoran aayadda qur-aanka ay sheegayso sida markaan akhriyo horena aan garanaya ama marka dambe aan kutubaha kala duwan markaan ka eego macnaha saxda ii soo baxay inaan af Soomaali ka dhigo qodobka waan ku dadaalaa sidoo kale waxaan isku dayaa inaan af Soomaaliga meesha ku yaala iyo ereyada inaan u helo ereyada Carabiga ah ee qur-aanka ku qoran yahay ereyo u dhigma af Soomaaliya marka macnihii oo tarjumaada iyo ereyadii qudhudin aan ka fogaanin si markaa maartay luqadii labadii luqadood la isugu baran karo waayo waxa dhici karta in dadka qaarkood yiraahdaan okay iska dhaaf ereyada laakiin nuxurka oo qura soo gudub nuxurka macnaha laakiin nuxurka iyo ereyada waxaan ku dadaalay inaan ereyadana ka fogaan nuxurkana aan markaa maartay sameeyo aad baad u mahadsan tahay waa mawduuc asaguna aad qaali iigu ah oo caawa dhan aynu ku sheekaysan karno laakiin waqtigii oo iga dhammaaday dartiis waxaan doonayaa inaan inta ku ekeeyo caawana waa dhigaal ka duwan dhigaalada kale inoo yaal aad uga duwan weeye aadna loo qurxiyo shaqo wanaagsan baa laga qabtay kolley waa la isugu tegay waa ogaa maxamed cabdulaahi cabdan iyo loox bress aad baad u mahadsan tahay inaad ka qayb qaadatay mashruucan adiguna aad baad u mahadsan tahay macalin aad baad u mahadsan tahay goodhari soo dhow